there are claims of American complicity in torture and secret prisons. dowladda Mareykanka ka socdaan oo CIA ah meeshay degan tahay xarun ay ku leedahay qolo la yiraahdo MI6 oo dowladda Ingiriiska ka socoto meeshay degan tahay Faransiiskana way degan yihiin. The Western forces operate alongside Somali militias who they fund and train and who are broadly anti-Al-Shabaab. Their mission, according to Somali officials, is to snatch Al-Shabaab suspects from the streets and take them to secret jails to be interrogated. We met one Somali whistleblower, we'll call him Hassan. To protect his identity, we can't reveal much about him, but he did work alongside Western security agents for several years. The aim of these interrogations, he told me, is to find out if they will admit to being members of Al-Shabaab or agree to become agents. waxa lagu keenayna waa dhibkaas loo geysanayay torture-kaas iyo waxaas Si fiican hadalku rabo markuu ka leexan rabo budka lagu qabanaya soo jirdilaa la soo xeelaya waa qolada lagu xirto godka jilcu ayagoo la soo bisleeyay oo nooradoodu muuqdaan lagu keenaya. waxaan ognahay xabsiga Soomaaliya ama xabsiyada Muqdisho ku yaala marka la qabto ugama kororto diin wacyigelin ugama kororto inuu la ciqaabo oo la gargaraaco oo magaca laga xulo oo leeyahay qiro wixii oo hadhow la toogto tiir la geey wiil yar oo laga yaabo inuu been akhriyay waxbaan dilay heblaan dilay saada cali baan halkan ku dilay meelba kale aan dilay waxaan jirin intuu akhriyo ama wuxuu la siiyo uu iska hadlo hadhowna tiirka la geeyo waxaa jira filim maxaan ku raadaa in shay laga sameeyay oo la sii daayay 4 bishii February sanadkan 2016 waa bil ka hor maxaan ku raadaa in shay filimkaas oo dhabaantii waxa ka muuqda ay ahayd mamnuuc aan ismoogin sababta keenay ay ahayd sabab jirdil ah oo la geystay 14 bishii January ayaa la qaaday xarunta xalana oo uu joogo Lira Joe oo FBI da CIA da shaqadan u haysto gaar ahaan Soomaali u haysto Mareykanka ayaa joogay sabti ayaa lagu jirdilay dabeeto wuxuu igu yiri aqbal wareysigaas waxaan ku yiri ma aqbali karo mana sheegay ka waxa aad rabtay inaan kuu sheego dabeeto god hoose oo meesha ku yaalo oo biyo ku la yiraahdo ayaa lagu xareeyay meeshii ayaana lagu sulciyay waxaa ii yimid nin la yiraahdo Zakariye oo Zaki aan Al-Shabaab ku jira aan maqaanay waxa uu yiri niyo waan ka dameynaya ragga kan waxa ay rabaan isaga fuuday waxaan ku yiri ma ii suuroobaysaa in aan u fuudayo sida ay rabaan oo iga yeelan karaan adigu xawaali 7 ama 1 iyo 10 daqiiqo ayaa dilkii laga daayay oo habeenimo isla saldhigii aan ku xirnayo madaxtooye ayaana lagu celishay 16 bishii January ayaa hadana ay dhacday waxaan ku raacay in la soo baxo isla saldhigga madaxtooye waa la garaacay aad baa la igu garaacay waxaan ku raacay Zakariya ayaana darmeesha igu yimid oo igu yiri taftii ayaa jiran Soomaali waaye way fahmeeyaan iyo wax badan isku adkeyn jugta ugu dhacaysa heeray waxaan ku raacay sheekadaas dacwadaas oo la soo shiiday in madaxa lagu geliyo waa dhacday in dacbiya madaxa lagu geliyo way dhacday in maxaan ku raacay lagu hanjabo in sheeko qoomnimo lagu sameeyo doonano way dhacday markii dambe ninkan ayaa wuxuu yiri waxa soo dhanaa ka fakinayo niyo iska fuuday waxa lagu leeyahay ninkii gaalka ah isku diro ogtahay kan kuwana waa Soomaali iska fuuday marka sidaas ayaana maxaan ku raadayay barnaamijkii ugu fuudaaday in kaamiraas laga duubo ninkan Zakariya Zaki aan u naqaanayna isaga ayuu shakhsiga email-inay wadadan mar sidaan dheh su'aashan lagu weydiin doonaa sidaan ugu jawaab su'aashan lagu weydiin doonaa sidaan ugu jawaab ninka email-inay ahadkan maxaan ku raadayay hore xarakada ugu mid ka jiray ayuu ahaa markii aan aqbalay videogaas waxaan soo diyaar garoobay nin la yiraahdo Cabdi Africa oo televisionka qaranka waxa loogu yeeray ka shaqeeyo waxaa laga qaaday xalane kadib magaaladii ayaa laga qaaday ciidan badan sidii iyagoo wada xasan galguuto oo kale ayay macida Cabdi iga dhigeen anoo jeexjeexaysan soo ayay iminka ii dhiibeen xataa oo faaruq ah oo qasabaan iyo xabadaan ah kadib ayayna documentary aan iga diyaareen oo ay soo deeyeen iyo marka la duubayay waxa way joogeen in leeyahay Zaki iyo Cabdi Africa iyo Forno
iyo nin la yidhaha cabdiraxmaan caato oo taliyaha hogaanka baarista soomaaliya igu yeereen filimkaas waxyaalo badan oo aan ku iri oo aan dhahayay oo aan iga suuroobin waxa ay ahayd wax lay meerinayo oo sidaas ugu su-aasha kugu soo socoto sidaas ugu jawaab lay oranayay marka ilaahay kuma darnaadee waxaas wax lay meerinayo marna igama suuroobaan. waxaa kaloo video ku jiro cod aan ugu hanjabaya cabdiraxmaan cadaana oo laba dhacdo ayaan ka waramaya oo dhacdo lagu dilay xasan absuge in ilaahay wariye ahay oo ereygaas maxaan ku rahaa degmada qordhigle inay tahay xajinaya lagu dilay iyo mid kale oo la dhahayay asagana maxaa gaadhay labada codba waxay ahaayeen codod jil laygu yiri waxaana goobta aan ku jiraya joogay mufti cabdicasiis africa ninka la leeyahay cabdiraxmaan gino trafico oo taliyaha hay-adda hogaanka baarista waxay ugu yeereen groupka zakariye oo asagana dadkii aan u naqaanay nin la yidhaha forno oo asagana cameraman ahaa nin la yidhaha cabdikariim oo xawaadle oo taliyaha maxaabiista xabsiga madaxtooyaha intaa ayaa meesha wada joogtay cashirkaana oo cashir la yiri ku dhex ninka kan telefoonka aan hadlayay oo ladii wuxuu ahaa telefoon oo lahaa cabdiraxmaan gino trafic cabdiraxmaan caata la yidhahdo taliyaha hogaanka baarista ah ninka telefoonkiisa ayaa ku hadal la yidhi codka aan jiray labada marba aan jiray ee ahaa maxaan ku rahday shaaxadkiisu absuga dilkiisii iyo ninka maxaa gaadhay xataa sida maxaan ku rahaa email oo waxaa yiri ninka la yidhahdo zakariye oo maxaan ku rahdaa sheeg zaki aan u naqaano ninkaas ayuu waa ninka email oo dhahay saas ku dheh ana cabdiraxmaan ninka la hadli jiray maan dhaheen codadka shalay maxkamadda lagu saaran codadkii ayay ahaayeen laakiin codadkaas wuxuu ahaayeen codod aan jiray oo maxaan ku dhahay shabarta aan ku jiray telefoonkaasna waan ku hadlayay dadka ila joogno inta idin soo sheegay weeyaan wallaahi waxaa kaloo ogaataan in maxaan ku waxyaaba kale ahayd ayagoo hayso haddana noo jil inay leeyihin wax haddana ay maxkamad waxay jil yidhahdeen maxkamadda ay la soo qoreen waxyaaba fasilaadkooda kamidka maxaan ku dhahay ayay kamid tahay inay fasilan yihiin waxyaabaha cadeynta ay kamid tahay tana iyagiyaa loo jila yiri iyagii ay ugu qasbay inaan u jiro iyagii ayaan haddana maxkamad cadeyn ahaan ula soo istaagay waa kasaansaanona yiridahayo marka fasilaadkoodii layaabka lahaa ee aan arkay shalay sidaas weeyaan oo maxaan ku dhahday sheeg in codkii jila yidhahdeen haddana markhaati ay kasoo dhigteen oo ay leeyihin waa kasaansaanona dhahayay oo maxkamadii laga hordaara iyadoo ay joogaan dhammaan saxafiyiintii soomaaliyeed kuwii iska jiray muqdisho